بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن دعوة لدينا هانتين بملول باجوكتان كنا سود وهذا وركي سومالي نيوز 724 هالكايدا كجا آخرين دونانيجو إسماعيل علي عجاي قضى بدأ وركينا تكون دعوة دونتان وحا كمدا مدحوين فرماجة أو دلب وجودية جدون كلا بدأ أقل برلمان كفدرال كصوماليا دلب كاسي ومدحوين فرماجة وجودية لبدأ أقل برلمان كمحوية هاي وركينا تكون دعوة دونتان وحد كلا وركينا تكون دعوة دونتان دعوة ديالا محايس كبدلي هنان كلا أنسحنا يهشيس كي دورشة ee lagu gaaray Muqdisho waxa kala warkeen aad ku daawan doontaan Soomaaliya oo gudoomisay shirka golaha qaramada midoobay waxaad kala warkeen aad ku daawan doontaan hadduu alle idmo Soomaali lagu xiray dalka waqooyiga Macedonia iyo waliba waxa lagu haysto akhbaaraadkaasi akhbaaraad kale ayaad ku daawan doontaan warkeen asxaabi u diyaar garooba daawade haddii aad ku cusubtahay channelkan subscribe saar gambalelka taabo siina shargalay si asxaabtaada kale u gaarto wararka iyo macluumaadka soo gelina channelkan warkii oo dhan وهاجك داود لمن كان ندي سقط قضب كوجه الرئي وركين أتكو داود دونتان مدحوينها الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أيام ما أنت كلن وذجر أهلقتي مدح مامولة الدلك جدون كلبض أقل برلمان كفدرال كصوماليا مدحوينها أيام كلا هذي مسؤولين تاس مهمة إلى هاي إن لسي عم بقادة قضبضي كصوبحي شركي مقدشو وذا تشيك دروشوين كأيور دمستيركا هشيسكي دو سمرب سدح مدح أيام سيدو كلك أرين صدي سيدي أي دلك وقبسوم لهايد دروشو وقت كذا dhacda kana turjunta higsiga iyo horumarka ay ku talaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay si loo xoojiyo xasiloonida midnimada iyo nabadda dalka kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaanshi ayaa isaguna tilmaamay dadaalka madaxdu ay ku bixinayaan sidii loo sii ambaqaadi lahaa dhameystirkii heshiiska doorashooyinka oo hagaya in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsanto kulanka ayaa ku qotomay sidii ambaqaadida qodobadii warmurtiyeedkii 17kii bishan ay wadajir u soo saareen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxda dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir kaas oo qodobkii 11aad uu qayaxayay in heshiiskan siyaasadeed loo gudbinayo baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kula dardaarmay gudoonka baarlamaanka inay si ambaqaadaan qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho kana واجبك دستورga ka saaran dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhawaan heshiis kama dambays ka gaaray khilaafkii ka taagnaa doorashada kaasi oo muddooyinkii dambe horseeday jahwareer siyaasadeed oo horle heshiiska ay madaxdu ku gaareen Muqdisho ayaa la horgeyn doonaa xildhibaanada golaha shacabka oo horay u sheegay Farmaajo inuu ku celin doono heshiis kasta oo laga gaaro doorashada waxaana taagan dood xildhibaanada qaar ka qabaan heshiiskaasi kuwaasi oo walaac xoogan ka muujiyay qodobada sida wadajirka looga soo saaray shirkii Muqdisho halka gudoonka golaha iyo xildhibaano taabacsan ay u sacabatumeen heshiiskan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa si wada jir kulan ula yeeshay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka kuwaas oo isdiidanaa muddooyinkii ugu dambeeyay kulankan laba ujeedo lahaa ayaa lagu soo hadal qaaday sidii dib loogu soo celin lahaa wada shaqayntii u dhaxaysay labada aqal isla markaana loo dhameyn lahaa wax walba oo culays ka dhex jira in la soo dhameeyo khilaafka labada aqal waxa lagu soo hadal qaaday heshiiskii ay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ku dhex maray magaalada Muqdisho waana dhameystirka heshiiska doorashada ee ka kooban 15 qodob laguna gaaray Muqdisho waxa ku jiray in baarlamaanka la horgeeyo sidaas daraadeed waxa si wada jir loo horgeyn doonaa labada aqal si heshiiskan doorashada u noqdo mid dhaqan gala waxa loo baahan yahay inay si wada jir u ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka sida wararka sheegayaan waxaana la horgeyn doonaa maalinta Sabtida madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii ay heshiiska la gaareen dawladda dhexe waxay Muqdisho ka wadeen olole taageero ugu raadinayaan ansixinta heshiiska waxayna kulamo gooni la yeesheen xubnaha maamul walba ugu jira baarlamaanka labada aqal waxa la sugi doonaa ansixinta iyo diidmada
baarlamaanka ee heshiiska lagu gaaray muqdisho kaas oo la isku raaca doorashada ku dhacdo wakhtigeeda lana bilaabi doono si hordhac ah bisha November ee soo aadan danjiraha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay mudane Abuukar Cismaan Abuukar Beyle oo dhawaan loo doortay gudoomiye ku-xigeenka kulanka 75aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la wareegay shir gudoonka qayb ka mid ah fadhiga 75aad ee golaha loo dhan yahay shirka oo ah mid ballaaran ayaa waxaa sanadkan 2020 inta badan ay madaxda caalamka uga qaybgalaysaa habka online-ka ah sidoo kale waxaa sanadkan shirka diiradda lagu saaray saamaynta uu cudurka COVID-19 ku yeeshay bini'aadamka oo dhan talaabooyinka ay dawladuhu u qaadeen la dagaalankiisa iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay Soomaaliya waxaa shirkaas uga qayb galay kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo warbixin golaha ka siiyay xaaladda dalka Mahdi Guuleed ayaa khudbadiisa kaga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda oo laga gaaray heshiis siyaasadeed saamaynta dhaqaale ee Soomaaliya ka soo gaaray COVID-19 iyo sida dawladdu ay xoogga u saartay xakamaynta cudurkan si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa bishii Juun ee sanadkan 2020 loo doortay inay ka mid noqoto 22 madaxweyne ku-xigeen ee fadhiga 75aad ee golaha guud ee qaramada midoobay jagadaas oo Soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1979 iminkana akhbaaraadka caalamka booliiska waqooyiga Macedonia ayaa gacanta ku dhigay 61 qofood oo tahriibayaal ah iyo 5 ruux oo la rumaysan yahay inay yihiin muqallasiin dadka ku haga tahriibka howlgalka ayaa dhacay kadib markii taliska ciidamada la gaarsiiyay xog la hubo oo ku saabsan dadka waxaana la amray ciidamada sida gaarka ah u tababaran howshan inay ku dhaqaaqaan sida lagu sheegay xog hordhaca wadamada dadka ka soo kala jeedaan waxaa lagu sheegay 3 wadan oo ay waqtigan colaado ka jiraan waxaana ku jira Soomaaliya labada wadan ee kale waxaa lagu sheegay Afghanistan iyo Suuriya sidoo kale xog kale ay tusiyeen warbaahinta caalamka ayaa lagu sheegay in dadka la qabtay ay ku jiraan xubno u dhashay wadamada Pakistan iyo Bangladesh oo ah laba wadan oo ay xasilooni badan ka jirto marka loo barbar dhigo 3 wadan oo kale ciidamada waqooyiga Macedonia waxay horay gacanta ugu dhigeen 28 ruux oo lagu hayay guri ku yaala halkaas si loo sii gudbiyo waxaana wadamadooda lagu sheegay Afghanistan Bangladesh iyo Pakistan dadkan tahriibayaasha ah ayaa doonayay inay ka gudbaan xadka Serbia si ay halkaasi uga sii wataan safarkooda ay ku doonayaan inay ku tagaan wadamada kale ee Yurub warkii aad ka daawanayseen Somali News 724 daawadayaal waa naga daawad haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar kambalka taabo siina share garaysi asxaabtaada u gaarto wararka iyo macluumaadkan soo gelina channelkan